والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل السلام وأزكى التسليم. أما بعد أنا كسعنا أرددا دugsiga sare الإرشاد secondary waxaan u mahadnaqaynaa marka koowaad maamulaha iskuulka maamul Cabdiraxiim Xaaji Xuseen Daahir iyo dhammaan macallimiinta iskuulka sare الإرشاد secondary waxaan idin wadnaa barnaamij ku saabsan dhaqankii hore Soomaaliyeed oo halkan idinku soo bandhigi doono. runtii dugsiga sare الإرشاد waa iskuul ardayda dhiirigeliya macallimiin ahaan iyo arday ahaanba nala garab taagan maxaa yeelay wax kasta wanaagsan aan ka bilaabo ardayda garabkayga fadhida Xanaan Saciid Saalax Samsam Cabdi Xuseen Najax Cabdilaahi Maxamed Raaqi Ilyas Daawud oo talan daadihin doona barnaamijka aan halkan maanta idinku wadno anagoo ka socona ardayda fasalka 1B. bismillaah anigoo magacaygu Xasan Cabdi Xuseen Saydan soo sheegtay walaashay Sukhra waxaan barnaamijkan kaga qayb qaadanayaa laba su'aalood waxaan weydiinaa labadeeda su'aalood walaashay Raaqiya su'aasha koowaad waxay noqonaysaa dhaqankeena hore Soomaaliyeed iyo dhaqanka imika maxaad ka aaminsantahay horta magacaygu waa Raaqi Ilyas Daawud kana qayb qaadanaysa barnaamijka ciwaankiisu yahay qiimaha dhaqanka hore Soomaaliyeed sida magacayga ku soo sheegayba waa Raaqi Ilyas Daawud. haddaba haddii aan u soo noqdo su'aasha intaasi Samsamni weydiisay maxaad ka aaminsantahay qiimaha dhaqanka hore Soomaaliyeed. horta awalan dhaqankii hore Soomaaliyeed wuxuu ahaa dhaqan aad looga aqaano mashriq iyo maqribba oo aad ugu faafay dhammaan dacallada dunida. qiimaha dhaqankii hore Soomaaliyeed horta ma aha mid xaggan lagu soo koobi karo balse laakiin waa in yar uban kasoo taataabanaa. dhaqankii hore Soomaaliyeed wuxuu u ahaa dadkeena difaac iyo inay iskaga difaacaan cadowgooda iyagoon haysan wax hub ah haddana waxay u adeegsan jireen cadowgooda inay iskaga difaacaan dhaqankooga iyo afkooga Soomaaliga ah. inkastoo waxaan ku soo koobi karin horta qiimaha dhaqankii hore Soomaaliyeed aan xataa isbarbar dhigi karin qiimaha dhaqankii hore Soomaaliyeed iyo kan hadda taagan kan sidaad wada ogtihiin baad wada ogsoontihiinba dhaqankan imika hadda taagan waad ogtihiinoo ma dee wuxuu aad iyo aad iskaga bedelay kii hore u naqaani. haddii aan kii hore ku noqdo dadkii hore may ahayn dad diinta aad wax ugu garanaya balse laakiin dhaqankooda marka loo fiiriyo waxaad moodaysaa inay diinta ay dee si fiican u barteen balse laakiin waxay jaahiliin ka ahaayeen xagga iyo diinta. aan ku soo wareejiyo Samsam. Raaqiya waxaad ku tiri qabyaalada hore waxay ka dhigan jireen gaashaan dhaqankooga yacni tusaale ma gaarsiin kartaa haddii aan su'aashaada labaad aan kaaga jawaabo sidee bay uga dhigan jireen difaac iyo gaashaan. horta dadkeenii hore Soomaaliyeed ma ay haysan wax huwa oo iskaga difaacaan dadkeenii maxaa la dhahaa cadowgooda balse laakiin waxaa gaashaan iyo difaac u ahaa afkooga Soomaaliyeed. waxaa jirta maahmaah Soomaaliyeed oo tiraahda suuldhabaale waa hadal haddana waa si gooniya taasoo uga dan leeyahay dadku waxay gabayaagu ay ka dhigan jireen hadday ahaato hadal sarbeeba iyo mid sax ah oo si fiican isku fahmayo. muhiimadda koobaad ee ay dadkeenu uga dhigan jireen difaaca waxay ahayd isfahanka dadkii iyo wada fahmaya hadday hadalkoogu sarbeeb noqoto iyo hadduu mid sax noqdaba si fiican bay isku fahmayaan. taasina waa sababta u ogolaatay inay ka dhigtaan difaaci ay iskaga difaacaan cadowgooda oo iskaga difaacaan dhaqankooga iyo af Soomaaligoogaba. haddii aan inta kusoo gabagabeeyo su'aashayda waxaan ku wareejinayaa walaasha Xanaweedna xaggan su'aalaha kaga qayb qaadan doontaa kusoo dhawo walaalo. magacaygu waa Xanaan Saciid Saalax way mahadsantahay Raaqiya halkan su'aal waxaan ku weydiinayaa walaashayda garabka fadhida Najax su'aashaas oo noqon doonta sidee ahayd amba dhaqan hasaawi hore Soomaalida amba hasaawihan imika maxay ku kala duwan yihiin. Najax Cabdilaahi Maxamed kana socota groupkan muxuu ahaa ka hadlaya dhaqanka hore Soomaaliyeed. su'aasha ay weydiisay walaashay Xanaan oo ah maxay kala duwan dhaqanka hore hasaawi hore bariga hore Soomaaliyeed iyo hasaawi imika. hasaawi hore bariga hore ay lunahayn waxa walaal hasaawi aad u fiican oo dhaqanka horena ku jiro dhaqan wanaagsan xishood leh muxuu ahaa dhaqankan imika social media bay nala xumeeyay laakiin dhaqanka hore aad buu u fiicnaa. Najax waxaan doonayaa inaad nooga jawaabto maxaa yeelay waxaad ka wada hadlayseen sidee Soomaalidii hore ay u hasaawi jireen. tusaale rabnaa inaad nooga bixiso inankiina tusay u hasaawi jireen ama oraahiileys odhan jiray waxa la yidhi waxa jira geed lagu wareegi jiray
intaasoo faahfaahsan baan u baahanaa inaad su-aasha weydiisay maxay sababta inanku iyo inantu de geed bay ku wareegi jireeno amba inanku dee hangolkiilo situu dhulka ku xarxariiqi jiray inantuna ama meedhex bay saaran jirtay amba geedkaasi caleemo ka goosan jirtay su-aalaha isweydiin jireen waxaa ka mid ah ama olaalada dee halkartida ah muxuu ahaa wax isweydiin jireen inanku waxaa kulan jiray dhulka inoo laalaab eedba waxaa kulan jirtay waaye ka dhaqaaq taas waxa weeyaan odhaha ay isweydaarsan jireen labada qof su-aal kaloo iyana ah oo ay isweydiin jireen xariggaa inoo soo hayo waayo adigu inoo calaali walaasha raaqi waxaan ka weydiinayaa sugaantii hore ee soomaalihadii sugaantan iminka jirta maxay ku kala duwan tahay se maxaa loo adeegsan walaashay haddaan kaaga jawaabo su-aashaadaasi maxay ku kala duwan yihiin sugaantii hore iyo sugaantii horta farqi aad weyn baa iyada laftirkeeda ka dhexeeya haddii aan dul tagno sugaantii hore dadku dee waxay ku heesi jireen ama ku gabi jireen hadallo murti leh oo micnaa weyn ku fadhiya halka iminka lagoo dee bilaa macna uu noqday suugaanihii sida iminka waxaa hablaha lagu ammaanaya oo kale cadceedda kaamaseyra xidigaha damiya ayaa lagu ammaanaa hablihii xagga ay suugaantii hore ay ka ahayd mid hablaha lagu ammaano dee si fiican loo ammaano qurux dumar baa tahayo ayaa lagu ammaani jiray farqiga aadka weyn baa ka dhexeeya midda kale waxaa jirtaa heesihii ugu horeeyey ee xiisaha badnaa ilaa iminka la xasuusto ee heestii ugu horeysay soomaali la qaadaba lahayd musiga waxay ahayd heestii balwo saa la wada garanayaba balwo waxaa inoo heesay fanaankii cabdi deeqsi cabdisilimow cabdisilimow waxay ahayd heestii ugu horeysay lahayd musiga ee ay soomaali qaado intaasoo kusoo gabagabeynaya jawaabteyda balwoy balwoy hoy balwoy waxaa ibale yay mooyaane balwoy balwoy hoy balwoy waxaa ibale yay baabuure balwoy balwoy hoy runtii gabagabadii barnaamijkeena waxaan u mahadnaqaynaa inamada nagala qayb qaatay ee kameramaanada barnaamijka aan u mahadnaqaynaa annagoo ah ardaydii ka socotay fasalka 1B ee hablaha su-aashaan idinka tegino dadweyne ahaan waxa weeyaan maxaa dhaqankeena Soomaaliyeed ama afkeena Soomaaliyeed uu u dabar go'ay maxay ahayd lahjado kale loogaga hadlaa wadankeena u hirgeli waayay afkeena Soomaaliyeed halka uu ka hirgalay Ingiriiska aad baa u mahadsantahay